walaal waa kii dabcigaada la heshiyo dadna waa walaalka duunyo waa geel dal waa nugaal markuu dhaho dadkii kala tagay ilmihiisu iskugu yeeray muxuu yiri dad walaalka ma waa hadba ninka dabacada la heshiiso ani haddaan beeshar Yuusuf ahay dabacadayda inay ku jirtay iyo dantaydaba kii hore madaxweynaha ka ahaa Gaarisa County nadiif jaamac inuu dantayda ay ku jirtay maantaan gartay shalay ma ka saynin laakiin maantaan gartay saddexdii qof ee uu nadiif iyo shaqaaliya Gaarisa County iga shaqeynhaas zero wax iga dambeeyay ma jiro wax igu darsamena ma jiro ayagana halkii nadiif oo tagay joogan maanta inuu waagi bariyoon dhaxla qaadan sheekaya عمر بلسنا وانقدر أمان الله إلى دنتا ماشي نشوف فريسيس وادي بعطا نقول قفت وكنت راح بكو هاي سنين وإلى يكون بدن هذا سدحنا كري ونوقع قري نظيف ما كان اللوية هذا أي نوقع جرته علي بنو واحد بكيلين على أقل واحد بكيلين علمي نو أخرستين أي بوقشود نوتورين وان يوحي إليه قدرت أنا عن قبنا dhibaatadaas aan ku sheeganay yaan u sheeganay dadkii saacadda waxa ka bilaabatana waan ka aqlinay labadii aan ku guuray libaax baa iga dilay gaadiid inuu ii celiyo waa diiday gaadiid uu celiyo iska daaya degtii uu iga guuray degtii hadduu roob ka onkado faafi oo bari salaadii la dhaho hal la guuro ninkan gaadiid qabil muxuu ku guuray gaadiid uu celiyo iska daaya degtii uu iga guuray cali qorane درسكي وحكو وتر درسكي وحول نقد عولهم بان درس عولهم بان سدح اي قري حاليو waxaan ku sheegay aan waan guuree madoogash lagdheera banaanay qorofa kabta salaali meeshaas daris fiican loogu sheegay haddii aan dad caawada qeyn hashaleena aan sidaasay nugula geliyo siyaasad had maanta afka nugula gelin doono ma ka sayno haddana afka maanta haddana noo sheeg doono anagu nugula gelin doono ma naqaano waa dad kolley af kale ma nolol imaan doon annaga waxaan cadaynaynaa oon sheegaynaa dantanada waa ka wayne meeshii aan u filayne u yimid dheereen waa ka wayne dantanada haddii aan ka wayne meel alla meeshii dantanad ku jirto inaan haddana marayno berrina aan been noola sheegi doonin oon hadal bilaash qaadan doonin waraabku waa laba mid oon baxe iyo mid ladaad ah dadka xoolaha ku dhaqdo saas u dhaha waan oon baxnay laakiin ma ladaabanin oon bax aan oo baxnayaan mahad oo wahaynaa dawladda hore oo nadiif jaamac dhahay waraabkii aan waraabna oon baxnay abaalan oo wahayn waanan u hayn abaalkii waanan u haynaa midii aan xigmad iyo xoog iyo xoolo iyo xaraf isku darnay waan ka oomanaa waxaan inay xaqiijinay inay sheegaya in uu naga midibto koore cali bunow dhalinyarada Gaarisa County ku nool uu naga saaray annagoo ah qoyska Ra'iisul Nuurlahay waxaan inii sheegaynaa caawada qanaan u sheegaynaa in uu na midibto koore cali bunow uu naga midibto koore beesha ku nool Gaarisa County dhiyudka ku nool uu naga midibto koore laakiin annaga baahideena waan dareenamaan waa u soo baxnay Soomaalida u sheegaynaa caawada qan u sheegaynaa Gaarisa County inta ku nool u sheegaynaa annagana waan daneysanaynaa meeshii danta annaga ay ku jirto yaan aadayna hadday Illaahi Raxmaanir Raxiim magacayga waa Abubakar Cabdullaahi Shaqlane maxaan joogaa magaalada Gaaris Sambul location qayb kamid ah yaan joogaa halkanaan shalay iyo daraad iyo maanta yaan ku sugneen maxaan iskugu imaanay diin ay beesha Yuusuf Nuur ay lahayd beeshaas oo beel reeguleedo reejibriil oo reefarax jibriil kamid ah qoys kamid ah yaa halkan iskugu imaaday dantii iskugu imaadayna maxay ahayd inay diin cidda ay lahayd lagu akhristo haddii la diin akhristana diin akhriska kadib maxaa soo baxay talooyin fara badan iyo warqaad fara badan inay halkan iskugu imaaday dadkana meelo kala fogfog baa laga kala imaaday cidda iiday halkan iskugu imaatay Jaarajila division way degan tahay Garmagaala divisionna way degan tahay Gaarisna way degantoo waa aaday ugu badan tahay Jariirood meel la yiraahdona way degan tahay meel la yiraahdo Shabaxna way degan tahay intaas la iskaaga imaaday haddii la isku imaado diin akhriskii uu dhamaaday waa la tashaday tala meeshii la isku ka keenay talada haddii la isku ka keenay maxaa soo baxday beeshii Reey Yuusuf dawladdan maanta aan hoos joogno maxaa jirtaa dawlad koonti la yiraahdo oo muddo 8 sano jir ah oo halkan ka shaqeyso 5 sano way horreeyso oo nin baa madaxweyne gafana ka ahaa 5 way dambeeyso waa midan had aan ku dhex jirno oo hadda 3 sano aan marayna hadday cidii kala warqaadatay
dawladdii hore ee halkan ka jirtay oo dhisneed sheekada dhulkteelle maxay ahayd inay dawlad cowlahan leey ay ahayd anigana nin caawadaaq baan ahaa beesha reer yuusuf waa quus caawadaaqe maxaa jirta dawladdii uu gafana nadiif hogaaminay beesha reer yuusuf inay 3 qof oo shaqaale ee liga shaqaaliyey ilaa had maantana ay shaqaynayaan tii dambayso oo barabagaandhaha lagu soo dhiso oo caawadaaqnimo dhigta iskugu shubay oo nin walba iyo meeshuu joogu qaybta u lahaa iyo xaqi u lahaa yukeeli ahayd sheekadii lagu soo dhisay aniga gabar shaah karanay inaan ku hasan arrinkaas maanta igala kala warqaatay warkii soo baxay waa ka arrinka asaga marka maxaa la yiri kol idaga Allah hadago kol labaad idagana Allah idago shalay digniin baa igu dhacday maxaan garan waayay ninkii madaxweynaha ahaa oo maalinkii uu xilka hayay i xasuustay oo dadkayga intuu tubay ii shaqaaliyay inaan daba istaago waan garan waayo arrin qabiil la dhaha dhigta liigu shubay hadda maanta waaga ii bariyo kol idaga labaad idaga Allah idago way haddii maan digniinta ay u dhacdo aniga Allah idago aniga maanta maxaan sheekayaa inay dawladdii hore iyo dawladdii dambe tii hore ay dawladdayda ahayd tii hore dad i xasuustay u ahaa ninkii hogaaminaha tii hore xaqii aan ku lahaa aan ka hele tanay dambena zero aan ka ahay berrina inay dhici doonin beentii shalay intii lii sheegay li igu soo duway inay berri dhici doonin oo nin walba oday biiq muxuu yidhi walaal waa kii dabcigaada la heshiiyo dadna waa walaalka dunyo waa geel dal waa nugaal markuu dhaho dadkii kala tage ilmihiisuu iskugu yeeray muxuu yidhi dad walaalkaa mehe waa hadba ninka dibacaddaa la heshiiso ani haddaan beesha reer yuusuf ahay dibacaddayda inay ku jirtay iyo dantaydaba kii hore madaxweynaha ka ahaa gaarisa koonti nadiif jaamac inuu dantayda ay ku jirtay maantaan gartay shalay ma ka saynin laakiin maantaan gartay 3 qof ee uu nadiif ii shaqaaliya gaarisa koonti iga shaqaynhaas zero wax iga dambeeyay ma jiro wax igu darsamena ma jiro ayagana halkii nadiif uga tagay joogaan maanta inuu waag ii bariyo indha kala qaadan sheekaya cid walbo hadalkaas maqashona inay maqasho si fiican u ogaataan raba warkayga intaasuu ku kooban yahay bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa haaruun maxamed deeqow oo ka tirsan beesha hadda ninka aan iga horreeyey uu sheegay walaalkayga reer yuusuf nuur la yidhaahdo waxaana nahay dad caawadaaq ahoo caawadaaq ka tirsan waxaa jirtay sida ninkaa uu sheegay mar hore in ay maaragtay dawladdii hore aan ku dad ceel qaba iska dhigayne oon lahayn maaragtay wixii xaqi aad laheedana lidinka duusiyo 3 ruux kale xalidin qore kadib maalintii aan tagnay balambala intaan tagnay ee caawadaaq oo dhan iskugu tagay madaxdiisa ay meesha la taagnaa waxaa naloo sheegay dadkii madaxda ay mas'uuliyiinta ay noo sheegeen in haddii ay gafana uu soo galo cali buluw hadduu soo galo aadan barrena uu helo township uu galo in nin caawadaaqe oo baahan la arki doonin caawadaaq wuxuu rabo uu heli doono arrinta iidaheed baan annaga yaan ku qalab qaadnay oon maryaha u haydannay oon maaragtay u guntanay haddii aan u guntanay geedka lugtay meeshaas aad arkaysiin caligaroobka iga duray waa liiga qale isbitaalta liigay maalintii orodkii aan dhigaynay iyo wixii aan marnay dadkii aan intaa u marnay waxaa jirta maanta inaan waxaan ka helnay uusan jirin hataa gabar foodley ee maanta noola geynino intaasoo goor intaan ka soo kacnay jaaraajilaa int imaanay xafiiska ridiisa u taagnayn haddana aan ku noqonayno hal maalinna hataa intaan la kulannay kaalay soo fariistay bal aan wada hadalne hataa aan nala dhihin oo maalin walba intaan imaano markaan meeshan saan u taaganno haddana aan ku noqonayno oo nool iska bixinayno waxaa jirta in aan u istaagnay doorasho intaan u istaagnay doorashada iid ahayd aanan helin oo ku dhacnay ninkii ku dhacay doorashadina hataa shaqo aantaan oola doonno meel walba intaan la galnay aan u waynay 10 wiil oo jaamici oo waraaqa haystaa waraaqo intaan isku xirnay aan damacnay inaan imbiig u dhiibanno oo noogula geeyo cali bunow oo warqadihii ayaga hayna meel ay aadeen aanan ka saynin haddo hal xabad oo noogala soo jawaabay ayan jirin intaa 3 sano baan wax sugaynay haddii aan waayne waan ka hadalnay miidiya markan kow nooma aha mar kale aan ka hadalnay annagoo dhan bayaan u dhannaanay beeshay u dhannaanay laakiin dad ka hadlaa jira haddii laga hadlay hataa macnaha dadka muxuu qabdad la dhahayo la xasuusanay waa noqon wayne dadkana waxaa fiican ninku markuu dhibaato sheegto ninka shacabka ahee dalka degan in la ogaado oo la dhaho maxaa jira maxaa tawsan tahay maxaa la jira la dhaho dad waa la qore dadkii la qore laakiin dad baa gadaal baa dadkii la qore dad baa loo qore laakiin annagu waxaan sheeganaynaa 3 ruux ee horreysay maahine hal ruux oo kaleeta inaanu noogula darin maxaa jirana nala dhihin xafiiska cali bunow weligaa aan tegin oo noola diiday intaas soo goorna intaan ka soo kacnay jaarajila nool iska soo bixinay imaana gaaris saan u taaganoo 7 cawbari 8 cawbari aan ku noqonayno haddana raadkaanag haddii aan dad caawada qayn hashalayna aan sidaasay nugula geliya siyaasad
had maanta afka nugula gelin doono ma kasayno haddana afka maanta haddana noola sheegi doono anaga nugula gelin doono ma naqaano waa dad kolley af kale baa noola imaan doon annaga waxaan caddaynaynaa oon sheegaynaa dantannada waa ka wayne meeshii aan u filayne aan u imid dheereen waa ka wayne dantannada haddii aan ka wayne meel alla meesha dantannad ku jirto inaan haddana marayno berrina aan been noola sheegi doonin oon hadal bilaasha qaadan doonin بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم magacayga waa idriis ibraahim macalin waxaan ka mid ahay odayaasha beesha reer yuusuf nuur oo shirkan jaraa'id qabatay odayaashii iga horreeyey baa hadalka nuxurkiisa taabtay waxaan ku darayaa waa sida ay sheegeen dowlad haddii la soo dhiso oo nin uu madaxweyne uu yahay oo dowlad uu soo dhisi rabo dad alla dadka kala qayb qaatay shaqadaas markii dowladdiisa ay soo dhismato inuu xibno ka siiyo baa la arki jiray annaga xoolo iyo xoog iyo xeelad iyo xilli iyo xilinyaan ku bixinay dowladda cali quloon soo dhisideed maantana waxaa ilaahay xukmay inaan bakeeri biyaha karkabalin oo hal wiil ama hal gabar aan noola shaqeelin kenya maalinta ay xornimada qaadanaysay 1963 laba nin baa u shaqaynaysay beesha reer yuusuf nuur oo dowladda kenya ka shaqaynaysay 50 sano kadib beesha reer yuusuf nuur 3 shaqaale bay ku leedahay countiga gaarisa 3daasna waxaa qoray nadiif jaamac aadan cali bunow xafiis booy kan xafiiska salaadii markii la soo galo shaqada meelaha saa waxaa qayn hata waa noo quuri waaye waa hee wuu noo quuri waaye hees waxaa jirtaa la yidhaahdo daamberi heestaa waxaa ku luuqayaan aamine cabdilaahi iyo xasan aadan samatar dadka heesaha dhegaysto ama jacayl bay u qaataan ama siyaasad waayay dhahaan aniga marxalada maanta aan ku sugnahay qodobka turjumay baan rabaa inaan heestaa ka soo qaato aamine cabdilaahi waxay leedahay daamberi adoo walba waxaas cirkood doollo ka onkaday reerkii kaa gurguuriyo dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadku kala ogaada xali qorane ani halahaygi waa irmaan yihiin way guran yihiin irmaan inuu u celiyo waa diiday labadii aan ku guuray libaax baa iga dile gaadiid inuu u celiyo waa diiday gaadiid uu celiyo iska daaya degtii buu iiga guuray degtii hadduu roob ka onkado faafi oo bari salaadii la dhaho ha la guuro ninkan gaadiid qabiil muxuu ku guuri gaadiid uu celiyo iska daaya degtii buu iiga guuray cali qorane dariskii wax kugu tara dariskii wuxuu noqday cuulahan baan daris ahele cuulahan baa 3 ii qoray xaliyo waxaan kuu sheegay anigu waan guuree madoogash lagdheera bannaanay qurufa kabtaasaan aaday meeshaasaa daris fiican liigu sheegay ee adigu waxaad yeeli afkii aad berri iigu imaan doonto walaalow aad igu dhihi doonto yaan kaa sugi waanan ka baxe بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم magacayga waxaa la yidhaahdaa mawluud shaalow yuusuf oo beeshan iga hofadashe ka dhashe oo odayaasha jilibka lagu tilmaamano aano hadle waa wiilal aan adeer u aho ninkaas asaga hadlay waa caawdaaq waa ree guleed waa ree jibriil waa ree faarax jibriil malaangada hoose igi loo soo dhacona waa ree yuusuf nuur beesha ayadoo dhan ma ku kulmo meeshan hala guddi oo la soo jaga way waxa meeshan joogo markaas sidii odayaasha ka hadashe nin oo mabiya cabaa deeqaan baa Soomaalida ay ku hadasha annagu waan oomanna dawladdan anaka oomanna dawladda horena sidii odayaasha hore sheegtay waan ka waraabnay waraabka waa laba mid oon baxe iyo mid ladaab ah dadka xoolaha ku dhaqdo saas u dhaha waan oon baxnay laakiin ma ladaabanin oon bax aan oo baxnay aan mahad u wahaynaa dawladda hore oo nadiif jaamac dhahay waraabkii aan waraabna oon baxnay abaalan u wahayn waanan u hayn abaalkii waanan u haynaa
mid aan xigmad iyo xoog iyo xoolo iyo xaraf isku darnay waan ka oomanaa mana garaawsanin waxaan inta isku daran aan wax ulaan ma garaawsanin waxaan ku bixinay dawladdan awda kayaho ninka la yiraahdo bunow qorane xigmad xoog xandha xarafaan ku bixinay welina kama oon bixin sujuwe macaawada qabaan ayaa mataqaanaa nagu jiift mise dawladda ninka hogaaminaya nagu jiiftay ma naqaano intuu wiilka caawdaaq uu akhris qabo ama fikrad uu qabo way qabaan wiilashii ra'iisul marka annaga waxaan la hadlahaynaa oon na qabtay oonkana meeshaan ooga baxayna waan ka say sida dhudhunna loo wada dhalay la yiri si farana loo kala bax caawdaaq inaan u dhalnay waa jirto oo nin had aan ka barayno caawdaaq naga dhiga aan leen malo laakiin waan kala baxayn meesha inay dantaan ku jirto aan malaynayno yaan aaday oo waliba malmaha aan yaqiinsanno yaan aaday maxay dawladda hore idoo lagu daba qaylinay iyo saddex noola shaqeeya sida odayaasha hore mareen madeenga wax ka leecibsan malo ama nin xafiis buuye uu na soo booqan waaye aniga mawluusha loo oon kula hadlay nin waxaa jirta asag ay leeyahay minta ilmaadeer ay yihiin dhulkii aan ku noolay ka soo ilaahay minta taay mas'uulnimo ka soo galay chief ka ahay markii uu chiefnimada qaatilooda nafkii u horeeyay uu ku duceystay oo lagu ciyaaray ana bixiyay waanan u ciyaaray mood baanan dhahay ilmaadeer baa yihiin ninka asaga Axmed Luxus Garaad baa la dhahaa waxaa dhacday inaan intaan u tagay anoo beesha Aadam Cali la socdo wiil ani aan dhale culumana oona akhriste maadadana akhriste xanshi aan mataqaana aan ka qaaday inaan ugu geeyo gurigiis jeebka inuu u geliyo baan arkay ilaa amankan jawaab kama helin wax waan ku waaye iyo waa kan wiilka waan shaqaaleyn midna kama helin maxay ninka haduu madaxayo waa loo himay dheeri Soomaalina waxay tiraa hoor loo hanweeyo lagu hankaaga jir Ali Buno waan ku hankaagnaa daan beesha ra'iisuno gudiyaasha la soo doortay adaano aniga warkeyga intaas ku uga wasalaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamuud Haajir Shaqlane waxaan kamid ahay dhalinyarada Ra'iisul Nuuran odaygood yaan yahay chairman kood yahay waxaan inii sheegayaa beeshaanaga inay soo fariisato tashatay guddi ay soo jagaweese oo duqeey leh dhalinyarana leh dadka maanta fadho meeshan oo hadlahayo waa guddi ay soo jagaweesay beesha oo dhowr meelood ka kala umaanayso sidii duqeeyda hore ay sheegeen mar hore guddiga ay soo jagaweesaan kamid ahay waxaan ku hadli rabaa dhalinyarada codkoodii annaga waxaan kamid nahay dhalinyarada ku nool Garissa County waxaan kamid nahay dhalinyarada caawada dhalinyarada Garissa County ku nool ma ogaadeenka kamid nahay waxaan inay xaqiijinay inay sheegaya in uu naga midibto koore Ali Buno dhalinyarada Garissa County ku nool uu naga saaray annagoo ah qoyska Ra'iisul Nuur lahay waxaan inay sheegaynaa caawada qanaan u sheegaynaa in uu na midibto koore Ali Buno uu naga midibto koore beesha ku nool Garissa County youthka ku nool uu naga midibto koore annaga hadii aan noo dhalinta Ra'iisul Nuur waan leenahay akhris waan leenahay aqoon waan leenahay waxfaan wixii nooga saaray Ali Buno dhalinta Garissa County ku nool aqoonta ay leedahay waan leenahay xifradda ay leedahay waan leenahay wuxuu nooga saaray jawaabteeda ma rabnaa degdeg nagu siiyo waxaa jirta inaan dhowr jeer aan raadinay annagoo dhalin ah Ali Buno inaan la kulanno oo dhibaatadeena iyo baahida anaga aan u sheegano inaan u raadinay waan wayne waan wayne waxaan inii sheegaynaa inuu naga midibto koore haddana annaga haddii aan naho dhalinka youthka Ra'iisul Nuur haddii aan naho annaga waan baxnay waxaan ogaadeenka kale yaan ku biiraynaa iyo Soomaalida kale annagoo Ali Buno uu naga saaray beesha mataqaantaa Ra'iisul Nuur haddaan naho Garissa County uu naga saaray youthki dad annaga nala mid nagu jira ayagana oo mataqaantaa ay dhalin odayaal bale oo xuquuqtooda sida xuquuqta Ra'iisul Nuur u duugo kale ayagana u duugo kulay dadkaasna ayagana baahidooda dhibaatada
ka hadlani doonaan laakiin annagan baahideenna waan dareennamaan waan u soo baxnay soomaalida u sheegaynaa caawadaaqaan u sheegaynaa Gaarisa County inta ku nool aan u sheegaynaa annagana waan danaysanaynaa meeshii danta annaga ay ku jirto yaan aadayna hadda annaga danta meeshan aan maanta fadhino intan waxay ku hadashay waan ku hadli rabaa raawaca ku noo aadan baa liidhaha cimri bilisna waan ku jiraa maanta alla ilaahay danta meeshan soo fariisise waa dhibaato nagula qabte oo koonta waxba ku haysanin oo ilaahay kuma badan aaday 3 nin kali oo nooga qoray nadiif magan aluuya hadda ay noogu jirto cali buro waxba ka helin caawada qalna waxba ka helin ilmi noo akhristeen ay booqashada noo tuuran yihiin oo wixii ilaahay ku dartoona aan qabno dhibaatadaas aan kuu sheeganne yaan u sheeganne dadkii saacadda waxay ka bilaabatana waan ka aqlinne gacan wadki inaan ra'iisul nuurno oo gaar u bixi karno inaan muujinaan rabnaa oo dad la ogaaday aan noqono haye